وعن مركز صاحبيان سيدا عادي waxaan si joogta u isticmaalnaa messengerka oo ay leedahay shirkadda Facebook si aan asxaabteena ugu xiriirno mararka qaar laakiin markii aan soo galno messengerka waxaan aragnaa waxyaalo dhibaato nagu ah waxa kamid ah tusaale marka messengerka soo gasho in ay dadka qaar automatic hore ka soo wacaan markay arkaan online kaaga taasna waxay sababi kartaa inaad ka mashquusho ujeedkii sababta halka u soo gashay haddaba muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa gudihiisa messengerkaaga inaad iska qarin karto asxaabtaada adigoo waliba online ah asxaabtaada ayaa waxa ka qarinaysaa inaad online tahay in kale markii aad soo gasho iyaga ma arki doonaan inaad online tahay laakiin adiga qofka rabta ayaa la xiriiri kartaa qofka rabta ayaa wici kartaa laakiin iyaga ma ogaa doonaan inaad online tahay farsamadaas ayaa muuqaalka inaad kugu tusiyo balse intaan muuqaalka farsamada kugu tusin waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad la gareyso la wadaagta asxaabtaada ila daawo farsamada oo faahfaahsan saaxiibayaal si messengerka uga qarsato asxaabtaada si fudud tag abka messenger kuna dhufo markaad ku dhufato calaamadan kore ee akoonkaaga ee profilekaaga ku qoran yahay taabo markaad taabato kadib waxaad ka sii doorataa active status kadib markaad ku dhufato off taabo waxa meeshan lagu sheegi doonaa ogow dadka ciwaankaaga ku xiran ma arki doonaan inaad online tahay in kale turn off taabo hadda meeshan xirno dadka ma arki doonaan inaad online ahay iyo in kale waa soo gali karaa qofka rabaa la hadli karaa laakiin iyaga ma arki karaan haddii aan ka qaado oo dib uga laabto way arki karaan haddaba waan filayaa inaad fahanto farsamadan haddaad rabto inaad saarato si fudud calaamadan taabo kadibna xir haddaad rabto inaad ka qaadana isla markii calaamadii ku laabo oo furo صاحبيال وان فيليا إنك كفايدين وحن كعصنا مقال كان إن لو صاحب هذا ولو هاي صاحب بدن أيا جعل إن إسك قريان أصحابته ذو كلاسيس مشغول وتكون عشان تعيشوا الفيديو وحين أقول لهم مقال كان المقال حاجة قولي سو